asxaabta waa salaamay tobankii dambe ramadaan lagu jiraa ilaahay cibaadada hanoo toosiyo kulay bishaan daraama isaga soo dhamaatay sanadkan waa sanad xusan waa sanad la ilaawi doonin because cibaadada lana nagu dhacday ilaahay na cafiyo kulligeen walaalayaal ma rabin ruuxaantii inaan soo hadlo tobankan dambe laakiin waxay ugu kalifay kilib yar la soo diray nin weyn oo soo galay Facebook anigu Facebook ma lihiye tal soo jaraya WhatsApp la soo dhigay oo ma aragtay cod walaashay farxiye cabsiye shidaaya oo dhahay fiiriye ila dhageysta farxiye cabsiye farxiye kaba yar soo dirtirtay walaalayaal waxaan rabaa inaan marka hore u sheego dadka baraha bulshada ku jira ama qaaqlayaasha baraha bulshada ugu jira Safiya Tusmo oo dhaha Safiya Tusmo u dagaalamayna dhaho walaalayaal marka hore soo balta qaabka loo dagaalamo saas looma dagaalamo saasna qof looba difaaco inaad wax iska sii biisaan si ceebaysan maahane waxaad soo kororsanaysan ma jiraan marka ninkii wuxuu leeyahay cod wuxuu wataa oo WhatsApp ku wataa farxiye cabsiye aday leedahay oo aniga ay duubtay ruuxanti codka farxiye waxay iga duubtay habeenkii ugu horeeyay aan farxiye wada hadalnay aan Cabdi Ciise ku xiraayo waaye cod ay ugu dardaarantay oo leedahay biliis ha ka soo hadlin Safiyo iyo picture-ka adiga laga qaaday aad ii sheegtay hadda farxiyo ay ka soo hadlin ilaahay dartiis iyo dadkaas loo qof cilaadii la seejiyeen walaalay macaani waxa hadda kugu dhacay waa kulli waa iska barasho waad baratay uun gabadhaas iyo wixii ka suurtagalay laakiin media inta soo gashid farxiyo ilaahay dartiis u dhaaf oo gabadha ka soo daba hadlin clipkaas picture-kaas aad ma aragtay qaladka oo laga galay farxiye abaayay ma aragtay ka kaaftoon coday leedahay buu ahaa codkaas uu ku baxayna waa idin sheegaa marka tiri waxyar ka bacdi farxiyo waxay ka seexan weyday aad uga walwashay in aan media soo galo horta farxiye cabsiye wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn malaha oo Safiya Tusmo ayada iga sisabaysay oo igala hadlaysay marka codka I often get asked about how to get started. horta farxiye cabsiye wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn malaha oo Safiya Tusmo ayada iga sisabaysay oo igala hadlaysay inay dhibaato iyo xaqdi ka shaqeynaysa ma ahayna cod ay ilaahay dartiis iyo qof bilaadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay in oo ilaahay ajira ka siiyay ajir ku kororsanayso buu ahaa oo wanaag ku shaqeynaysa marka waxa dhacday aniga Snapchat waxaan ku soo qoray Brito waa soo hadli doona Brito Tusmo waa soo hadlaysa haday daacad ka noqonaysa arrintan aniga farxiye cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta Tusmo qoraalkayga la arkay ugu yaraan 6 qofood 6 qofood oo familka Tusmo ah ay soo galay WhatsApp-ka markaas riisaka codkan ku bixi doono waaya farxiye cabsiye waa aragnay maanta ayaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hadashay farxiye lagu soo adeegsanayaan lagu dulmin farxiye cabsiye waxa laga walwalsan inay dhibaato ku tahay Tusmo. Are you looking to build new friendships? laakiin waxay ugu kalifay kilib yar la soo diray oo inay dhibaato iyo xaqdi ka shaqeynaysa ma ahayna cod ay ilaahay dartiis iyo qof bilaadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay in oo ilaahay ajira ka siiyay ajir ku kororsanayso buu ahaa oo wanaag ku shaqeynaysa marka waxa dhacday aniga Snapchat waxaan ku soo qoray Brito waa soo hadli doona Brito Tusmo waa soo hadlaysa haday daacad ka noqonaysa arrintan aniga farxiye cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta Tusmo qoraalkayga la arkay ugu yaraan 6 qofood 6 qofood oo familka Tusmo ah ay soo galay WhatsApp-ka markaas riisaka codkan ku bixi doono waaya farxiye cabsiye waa aragnay maanta ayaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hadashay farxiye lagu soo adeegsanayaan lagu dulmin farxiye cabsiye waxa laga walwalsan inay dhibaato ku tahay Tusmo kan dambe laakiin waxay ugu kalifay kilib yar la soo diray nin weyn oo soo galay Facebook anigu Facebook ma lihiye tal soo jaraya WhatsApp-ka la soo dhigay oo ma aragtay cod walaashay farxiye cabsiye shidaaya oo dhahay fiiriye ila dhageysta farxiye cabsiye farxiye kaba yar soo dirtirtay walaalayaal waxaan rabaa inaan marka hore u sheego dadka baraha bulshada ku jira ama qaaqlayaasha baraha bulshada ugu jira Safiya Tusmo oo dhaha Safiya Tusmo u dagaalamayna dhaho walaalayaal
dagaalamo saas looma dagaalamo saasna qof looma difaaco inaad wax iska sii bi'isaan sii ceebaysaan maahane waxaad soo kororsanaysaan ma jiraan marka ninkii wuxuu leeyahay cod wuxuu wataa oo wasaabka ku wataa farxiyo cabsiye coday leedahay oo aniga ay ii duubtay run ahaantii codkaa farxiyo waxay iga duubtay habeenkii ugu horreeyey aan farxiyo wada hadalnay ee aan cabdi ciise ku xiraayo waaye cod ay igula dardaarantay oy i leedahay biliis ha ka soo hadlin safiyo iyo bictureka adiga lagala qaaday ee aad ii sheegtay hadda farxiyo ayaa ka soo hadlin ilaahay dartiis iyo dadkaas labas qof oo cibaadadeenna seejiyeen walaalay macaane waxa hadda kugu dhacay waa kolley waa iska barasho waad baratay uun gabadhaas iyo wixii ka suurtagelayay laakiin miidiya intaad soo geshid farxiyoy ilaahay dartiis u dhaaf oo gabadha ha ka soo daba hadlin klibkaas ee bicturekaas aad ma aragtay qaladka oo lagaa galay farxiyo abaayoy ma aragtay ka kaaftoon coday i leedahay buu ahaa codkaasuu ku baxayna waa idiin sheegaa marka yaa tiri wax yar ka bacdi farxiyo waxay ka seexan weyday aad uga walwashay in aan miidiyaha soo galo horta farxiyo cabsiyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn ma laha oo safiyo tusma ayadaa iga sisabaysay oo igala hadlaysay marka codka I often get asked about how to get started. soo galo horta farxiyo cabsiyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan hayn ma laha oo safiyo tusma ilaahay dartiis iyo qof bini'aadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay oo ilaahay ajira ka siiyay ee ajir ku kororsanayso unbuu ahaa oo wanaag ku shaqaysanaysay marka waxaa dhacday aniga snapchat waxaan ku soo qoray berito waa soo hadli doonaa berito tusma way soo hadlaysaa hadday daacad ka noqon weysa arrintan aniga farxiyo cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta tusmo qoraalkaygaa la arkay ugu yaraan 5 qofood 6 qofood oo faamilka tusma ah ii soo galay whatsappka markaas riisaka codkan ku bixi doono waaya farxiyo cabsiye waa aragnay maanta iyaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hashay farxiyo lagu soo adeegsan yaan lagu dulmin farxiyo cabsiye waxaa laga walwalsan yihiin inay dhibaato ku tahay tusmo. Are you looking to build new friendships? laakiin waxay igu kalifay kilib yaraa lay soo diray oo inay dhibaato iyo xiqdi ka shaqaynaysana ma ahayna cod ay ilaahay dartiis iyo qof bini'aadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso coday ugu tala gashay oo ilaahay ajira ka siiyay ee ajir ku kororsanayso unbuu ahaa oo wanaag ku shaqaysanaysay marka waxaa dhacday aniga snapchat waxaan ku soo qoray berito waa soo hadli doonaa berito tusma way soo hadlaysaa hadday daacad ka noqon weysa arrintan aniga farxiyo cabsiye waxaan runta ka sheegaynaa arrinta tusmo qoraalkaygaa la arkay ugu yaraan 5 qofood 6 qofood oo faamilka tusma ah ii soo galay whatsappka markaas riisaka codkan ku bixi doono waaya farxiyo cabsiye waa aragnay maanta iyaduna soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay adigana hadda waa soo hashay farxiyo lagu soo adeegsan yaan lagu dulmin farxiyo cabsiye waxaa laga walwalsan yihiin hadli doonaa berito tusma galay whatsappka inay hayso fiidiyoyaashii kale inta hartay marka snapchat waxaan ku hadlayaa iska go'go'ay dhimanaan muhiimadda waa soo dhaadhicaynaaye marka farxiyo cabsiye waxaan ku yiri marka waxaan dareemay oo arkay oo waliba caadi lagu sheegayaa inay farxiyo cabsiye ninka isku family yihiin adiga waa lagu soo adeegsanayo yaana tusma qalad laga fahamsiino yaana qalad lagu dirino war tusma maxaa lagu diraayaa tusma aniga lagu diraayo farxiyo cabsiyana wanaag waxaan ahayn kala shaqaynayso ayadoo wada hadlin tusma tallaabo ma qaadayso iska daa farxiyo inay tallaabo qaado ayadoo tusma aysan wada hadlin anigi ay iga walwalsantahay waxay ka sii dardaarmaysay inaan waxaysan ayadoo ogeyn aan sameeyno ma aan ku fuulaan tusma marka waxaan iri walaalayaal markaan arkay ma aragtay exactly ninkan hadda soo hadlaay maanta ninka hadda maanta muxuu yiri leeso dir kilibkiisa farxiyo kaba naag hawiyaha tahay naag mursaha tahay reerays yaqaana isaayo yaa lagu soo didiran tusmo yiri cajiib exactly wixii aan ka cabsanay gabdhaha ka qancinay ku hadlaay marka bahalka qabiilka la yiraahdo cajiib yahay gabadhaas wanaaga iyo gabadhaas sharafteedii ila ilaalinaysay ee waliba ayadii kaga si walwal badnayd inay ka aaminsan yihiin farxiyo cabsiye inay ka soo horjeedo tusma ama ay dhibaataynayso oo qabiil ay ku dhibaataynayso markaan arkay aan waxaan ku yiri intiinaan meesha ku jirto hal gabar oo aan aad u aaminsanahay qof weyna
oo maarta muxtarim aad u ixtiraama waxaan yiri codka abayaan soo dhigaya dhageysta farxiyo cabsi iyo codka ay soo duubtay aniga ay igaga sabayso tusmo hadda gabdhii meesha ku jiraan u diraya jasinan ku qanciya ayaga inay farxiyo cabsi iyo tusmo aysan ku ahayn maarta weerar aysan ku ahayn ama aysan dhibaataynayn ilaa waan arkay waxay aaminsanayeen inay farxiyo cabsi iyo tusmo dhibaataynayso marka codkii farxiyo aniga ay duubtay ee wanaaga ahaa baan u diray ayagii waa codkii waxa maanta loo diray nin kamida baraha bulshada kuwa ka qaaqleeya ka sheekeeya marka codkaas asaga ah ee farxiyo cabsiye maanta ee ninkaasi tuushiday uu leeyahay dhageysta ee gabadha farxiyo kaba yar ah sida naagtaas farxiyo cabsiye ay u dirayso ila dhageysta uu leeyahay shirshiraay meelo idinka anfacay male kuma dagaal gali kartaan oo codkii cod xiqdi iyo xumaan ku jirta maaha meel laydi kama anfaco aniga farxiyo cabsiye iskuma kala diri kartaan oo farxiyo cabsiye codkeeda qaabku ku baxay iyadoon ogeynba inaan dadka aaminsan inay tahay qof qabiilista ama ninka qabiil arrintiisu ku soo gashay dadka aaminsan inaan ka dejiyay oo aan codkeedii wanaaga ahaa u diray xataa farxiyo dib uguma sheegin oo ilaa dadka markaad kala maslaxado ama aad wanaag kala dhex dhigto hortaasaa looga haraa xataa farxiyo kale uguma sheegin uma dhihin farxiyo codkaagii aan u diray markii aan arkay dadku inay kugu kacsan yihiin codkaa ii soo dirtina safiya iga saraysan u diray xataa ma dhihin maanta farxiyo wada hadalnay markay aragtay codkeeda baraha bulshada wareegaya marka waxaa la yaab wanaagsan tahay marka walaalayaal exactly wixii aan ka baqayo dadkaas waxyaabihii ay igula hadleen habeenkii ee aan qalbigooda ka saarayo ninkii ku hadlay farxiyo kaba yar oo lagu adeegsanaya dadka baraha bulshada ku jiro 10 dambe lagu jiraa waa leedka soo milaayay Soomaaliya ilaa 10 dambe xataa hal mid ay idin sheegaya tusmo horama u sheegay dadaan waxba tareynino tusmo dadka ku sii dirinina tusmo dadaan waxba tareynino dhibaato si maleegin oo dhibaato iyo colaad u sii abuurina tusmo aniga hadda waxay aaminsantiin tusmo inaan isku baabaanay tusmo xalma habeen hore isla hadlaynay aniga iyo walaa farxiyo cabsiye iyo walaa cid kale oo aaminsantiin ama tuunsantiin inay dhibaataynayaan habeen har iyo habeen kama seexano arinteeda safiya tusmo anaga walaashan tahay mar waa dumar mar waa walaashan oo gabar Soomaaliyeed ayadoo hooyo Soomaaliyeed safiya tusmo dhibaatadeedu waa dhibaatadeena nagamana xigtaan waxna ma taraysaan intaan anagu tari karnana ma taraysaan marka waxaa idin leenahay daral ku daga ma dagaalamay taqaanana dagaalkana soo